waxaa maalintii labaad maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay xukun dila ku fulisay askari ka tirsanaa ciidamada booliiska gaarka ee maamulka koonfur galbeed kaa oo horay degmada Buur-Hakaba ee gobolka Baa ugu dilay oday shacab ah isla markaana dhaawacay laba wiil oo isaga dhalay. dhamme muumin xuseen cabdullaahi oo ah ku-xigeenka heer ilaaliyaha guud maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ku dhawaaqaya xukunka dilka ah maxkamadda maanta ay ka fulisay duleedka magaalada Baydhabo. bismillaah taariikhdu markay ahayd 7 bishii 11 2016 abaaro 9 subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay gacan ku dhiigle Deble Ali Buurow Maxamed 25 jir ah ina Xaawo Cali Maxamed ku dhashay Buur-Hakaba ka tirsan ciidanka booliiska gaarka ah ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu si bareer ah oo ula kac ah u dilay marxuum Qaasim Cabdiyow Xaaji Keerow dhaawacna u geystay laba wiil uu dhalay marxuumka oo lagu kala magacaabo kow Cali Qaasim Cabdiyow iyo Cabdullaahi Qaasim Cabdiyow. taariikhdu markay ahayd 10 bishii 10 2016 dembigaas oo ka dhacay degmada Buur-Hakaba. taariikhdu markay ahayd 8 bishii 11 2016 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku xukuntay gacan ku dhiigle Deble Ali Buurow Maxamed dil toogasho ah. maanta oo ay taariikhdu tahay 25 bisha 4 2017 waxaa lagu fuliyay gacan ku dhiiglaha xukunkii dilka toogashada ahaa. wabillahi tawfiiq. محمد حسين فارسل TV Baydhabo.